Tartanka banooniga lugta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir wayba si toos ah lambaasado doona 29 Diseembar ee sanadkan, balse wayba jiray isqabqabsi hoos kaasoo u dhexeeya maamulka Koonfur Galbeed iyo xiriirka Majaro go'aan rasmi ah oo ku bahi. Maamulka Koonfur Galbeed oo xaqiijiyay intii uu isku xireen tartanka, balse weli wayba ka adkaysanayaan go'aansho. Maamulka siyaasiga iyo kan ciyaaro Koonfur Galbeed yaa isku dhinac waybana sheegeen in ku muuqda safka xulka waana la xakadaro goolhaye Ibraahim Axmed Fikirey oo ku tirsan kooxda Wahool kaasoo xukumuuqday liiska xulka qaranka Soomaaliya. Weli ma diiwaan gelin Yoona Mahabana wayba roogana Baydhabo waybana sheegeen ilaa iyo ku ogaadeen in uu iska jaro xulka Ibraahim Axmed Fikirey oo ah goolhayaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Haddii uu ku reebanayo ku xiri doonaan tartanka maamul goboleedyada Soomaaliya markii la rooga wayba la xaliyay khilaafaadka xal mastuur ama gogol dhig. Koonfur Galbeed ayaa sheegay tabashooyin sheenan in xalina intii uu isku xiri doonto tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Haddii KJS tartanku ku maqnaato tartanka wayba muuqday kooxdaysan waybana horey ku maqnaayay Puntland iyo Khaatumo oo sanadkan la faday intii la qurxi tartanka weli wayba has diyaariyay waana aan diyaar garoobay 4 koox oo ku mid ah Galmudug, Jubbaland, Hirshabelle iyo gobolka martida ee Banaadir. Dadka qaar ayaa wayba leeyna tartanka wayba in ka qaab maayo waanan ka agaasimo doonay ee la xasuusado taariikhda tartanka banooniga lugta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Gooluda sakiin la muuqda tartanka banooniga lugta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Fikirka hoos nin reeb falowna dheh page